Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Puntland Post bani salaamayaal aad baa maxay doontu waxay ka baxday degmada Bareeda nawaaxigeeda ulada loo yaqaan oo u jirta 12 ilaa 15 dhinaca bariga raasi afeed ka xigta doontaasi waxay nooca loo yaqaan masnaca loo yaqaan shaqir magaceeda waxaa la dhihi jiray Cabdi Waaxid motorka saaran wuxuu ahaa nooca loo yaqaan daayo waxaa ka lahaa nin Soomaaliyeed oo ganacsada ah oo Puntland laga yaqaan iyo Yombar oo laga Ismaaciil doontaasi waxay ahayd nooca loo yaqaan bay ku shaqeysan jirtay Salaam ama dadku u yaqaaniin kalluumaysatada laashashka kalluumadu ay ka shaqeystaan kalluunka markay soo guraan laga iibsado doontaasi markay sida caadada ahayd shaqadeedii dhamaysatay oo ay buuxsantay ayay sida caadadu ahayd waxay u safartay dalka Yemen alaaba doonyu waxay safraan qalinka dambe ama galabtii ama habeenkii maxaa yeelay shaqada ayaa waxay tahay laba nooc ay tahay nooca diidmada loo yaqaan shabaagaha gaadiidku waxay baxaan afartii habeenka ay badda ku maqnaadaan maalintii galinkeeda horena waxay keenaan wixii ilaahay soo siiyey oo laash walba walba ilaahay kismaanka ugu talagalay inay hesho nooca loo yaqaan shahaada ama dilaarta waxay baxaan subaxdii waxayna yimaadaan alaaba galabtii ilaa masbadii fiidka hore doonyo badana waxay dhoofaan marka galinka dambe doontaas waxay dhooftay maalintii siinta lasoo dhaafay 8 duurnimo iyo wixii ka dambeeyay waxaana ugu wardameeyay 30 mayl markay maraysay iyadoo khadka kasii baxday aseenada maalintaas ilaa iyo afternoon doontaas warkeeda anagu ma hayn way maqnayd saakay alasaydi hore waxaana soo gaaray war farxad leh oo sheegaya doonta in la helay lagana helay 70 mayl dhinaca badda biyaha Boosaaso magaalada Boosaaso badweynta kaga aadan waxaa la sheegay doonta in maaragtay Yemen runtii loo sii wado magaalada Mukulli waxaan kaloo wararka ku helay dibba macnaha waxay dabcan ama waa la dabay ama dhinac kale ama wixii ka xumaada loo sameeyo dhinaca Yemen bay boosaaska hadda ku helay inay u sii socoto Puntland Post marka waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto waraysigan dhibaatooyinkan waa dhibaato mar walba soo noqnoqota shirka badda ka dhacaana sida la socoto ka duwan yahay shirarka ka dhaca biriga iyo dhirka maxaa yeelay alaaba shirarka kale waxaa la helaa dadka meydadkooda qofkii waqtigiisa galay oo meesha ku nafwaaya laakiin badda qofkii meeshii soo caariyo maahane waa maaragtay dad madow alla ku yaqaan waxba lagama helo